aad iyo aad u xanuun badan bay ahayd isla Burco lafteeday taasna igala kulantay waxaa la ii keenay inaan sinima la 12 jir 14 jir oo aad iyo aad yani u qurux badan ma sha Allah inanta ayaydeed baa haysta hooyadeed way dhimatay marka ayaydeedaas ma kala garanay matii aaba matii hooya ma kala garanaya inantii markii ay ilaa dhowr iyo 10 jir noqotay mii bay ku haysatay ay u shaqayn jirtay ayaa waxay damacday inantii inay magaalada ay ehelkeedii kale ay u timaado wax barato islaantii iyadoo wax xumaa islahayn waxay u tagtay kuwan sixiroolayaasha waxay tiri inantii waxaan rabaa inaad iigu samayso jilib xidh miyaa garanaysaa waa garanaysaa inanta waxaan rabaa inaad iigu samayso jilib xidh si aanay iiga tegin ayaydeed iyadoo waxyeello geysis ma lahayn sixirkii ay u soo qabatay jilib xidhku waxa weeye qofka la rabaa inaanu gurigaba ka bixin ama aanu magaalada ka bixin ama qofka la dabrayaa qofkii baa la dabrayaa si aanu meesha uga tagin inantii sixirkii sidii laga rabay muu noqon sixir almarad bay isu bedelay maskaxdeedii baa khalkhashay marna wuu soo galaan maskaxday qabsadaan marna way sii daayaan inantii intay maskaxda qabsadeen baa maalmaha ka mid ah intay gaas iyo kabriid u dhiibeen ayay qabadsiiyeen inantu markaa ilaa intaa naasaha ka hooseysa way ka gubatay dhammaantood way gubatay inantii oo yani aad iyo aad u rafaadsan baa laygu keena Burco marka mashkiladdu ma ahayn inay iskubto waxa aniga iga damqasho badnayd mar allaaliya marka la is yiraahdo dhaya ee dhakhtarku uu doono inuu dhaymihii saaro ayuu jinkii hadlayaa uu leeyahay dhaymada naga daa haddii kale dhinaca adeeya sameeyo dhinaca kalaan diirka ka qaadaynaa meeshii gubatay adoo saa u arkaya baa dhinacii intuu diirku ka cararo ayaa dhiigu saa uga soo boodaya dhiiga ka soo boodaya hadba dhinaca la dhayeemayo dhinaca kaluu nabarkii ku dhufanaya deedna waxaan go'aansanay in aan afka ka siino dawadii mar haddii dhaymadii waa bahal caniida buu ahaa qofkiina waa qofta jilicsan oo laguma sii tiigsan karo dhakhtarkii markaa waxaan isla qaadanay in antibiotic inantii la siiyo been idiin sheegi maayo masaajid baan fadhiyaaye 4 xabo antibiotic ah baa mar kaliya aan liqsiinay isla waqti yar gudaheed xagga dambe ka keentay iyadoo wax allaaliya wax dheecaani aanu gaadhin antibiotic waa taqaano kan deequm abu qumbula haddii candhuuf yar taabato markiiba kala daata ayaa intay hunguriga martay oo caloosha martay oo xiidmaha martay waxa soo acid ah iyo waxa soo qoyaan intii ka badbaadeen ayay toos uga soo baxeen duburta 4 midba gacantaan ku qaadnay iyagoon bari gaadhin wax allaali wax isbedeli aanay jirin ilaahay wakaas dawadiinii ayay nagu yiraahdeen inantii markaan u maaro weynay oo si allaaliya si aanu galaan weynay inantii markaa aniga waa layga qaaday waxaan anigu hawshan waxba ka qaban kari maayo ma garanayo hadda inantii inay dhimatay iyo inay nooshay laakiin aad bay u silciyeen